madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo kooxdiisa ayaa qaylodhaan afka furtay kuwaas oo ka naxay guulaha isdaba joogga ah ee uu dalka gaarsiiyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Farmaajo iyo kooxdiisa oo rajo ka qaba inay mar kale Soomaaliya maamulaan ayaa ka naxsan inay arkaan waxay 5 sano qaban waayeen oo Xasan Sheekh Maxamuud 1 sano iyo dhowr bilood ku qabtay. sidoo kale waxyaabaha ku cadaynaya inuu Farmaajo si weyn uga naxay guulaha uu dalku gaaray kama uusan hadlin Farmaajo cunaqabataynta hubka iyo dalada bulshada bariga Afrika oo ay Soomaaliya asbuucan labadaba ku guuleysatay. laakiinse taas bedelkeeda Farmaajo iyo kooxdiisa ayaa ka shaqaynaya warar been abuur ah oo lagu marin habaabinayo shacabka, sidoo kalena lagu qarinayo guulaha waaweyn ee uu dalku gaaray ayagoo eeganaya danahooda siyaasadeed iyo sidii ay shacabka uga qarin lahaayeen guulaha muuqda ee ay dawladdu gaartay. sidoo kale kooxda Farmaajo ayaa ka shaqaynaysa inuusan Xasan Sheekh helin taageero shacab, iyadoo ay diiradda saarayaan kooxda Farmaajo sidii ay shacabka Soomaaliyeed uga qarin lahaayeen guulaha uu Xasan Sheekh dhaliyay ee uu Farmaajo 5 sano ku gaari waayay, laakiinse uu Xasan Sheekh 1 sano iyo dhowr bilood ku gaaray. dhinaca kalena warbaahinta ay sida gaarka ah u maamulaan Farmaajo iyo kooxdiisu ayay ku faafiyeen warar been abuur ah iyadoo ay sheegeen inuu Xasan Sheekh Maxamuud dano gaar ah ka leeyahay in Soomaaliya laga qaado cunaqabataynta hubka, taasoo ay dad badan la yaab ku tilmaameen. dhinaca kalena muujisay halka uu marayo hab fikirka Farmaajo iyo kooxdiisa. sidoo kale waxaa muuqata inuu Farmaajo u adkeysan waayay horumarka uu Xasan Sheekh ka sameeyay siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya oo tan iyo markii Xasan Sheekh dib loo doortay yeelatay muuqaal wanaagsan, iyadoo uu Farmaajo Soomaaliya u abuuray dalal badan oo cadow ku ah. laakiinse dhinaca kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dib u hagaajiyay dhammaan dalalkii uu Farmaajo cadowga uga dhigay Soomaaliya. bal aan eegno qaar ka mid ah wadamada uu Farmaajo cadowga uga dhigay Soomaaliya. waxaa ka mid ah wadanka Kenya iyo dawladda Djibouti. haddaba maxay Kenya Farmaajo kula diridhay Xasan Sheekhna ugu hiilisay? Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ahaa madaxweynihii ugu horeeyay ee dacwadda badda geeya maxkamadda Hague. Farmaajona go'aankii Xasan Sheekh ayuu xoojiyay, laakiinse dawladda Kenya iyo Farmaajo waxay isku noqdeen dab iyo baasin. haddii aan eegno dhinaca Xasan Sheekh oo isagu dacwadda badda geeyay maxkamadda Hague, wuxuu Kenya ka helay taageero iyadoo ay dawladda Kenya u codaysay inay Soomaaliya ka mid noqoto dalada bulshada bariga Afrika. waxaana halkan laga akhrisan karaa inuu Xasan Sheekh Maxamuud Farmaajo uga wacan yahay siyaasadda arrimaha dibadda. sidoo kale Farmaajo ayaa dawladda Djibouti ka dhigtay cadow isagoo ka doortay Eritrea, taasoo noqotay waxaan loo fadhin oo ay dadka Soomaaliyeed qaadan waayeen. dawladda Djibouti ayaa ah dawlad si weyn u gacan qabatay Soomaaliya iyadoo loo yaqaan walaalaha Djibouti, waxaana uu Farmaajo khatar geliyay wadajirka iyo walaalnimadii dawladda Djibouti. sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii la doortay dawladda Djibouti uga hoyday gafkii lagula kacay, iyadoo uu Xasan Sheekh Maxamuud baarlamaanka Djibouti ka hor sheegay inaysan walaalnimada Soomaaliya iyo Djibouti birina jari karin biyana mayri karin, taasoo dib u soo celisay walaalnimadii dawladda Djibouti. waxaana uu Xasan Sheekh ku guuleystay inuu dhammaan dhayo dhaawacyadii siyaasadeed ee uu Farmaajo u geystay siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya. waxaana ay Soomaaliya maanta si siman ula macaamilaysaa dhammaan dawladaha dariska iyo kuwa caalamka. intaas ayaan ku soo koobaynaa warbixintan. daawade adna aragtidaada nagula wadaag qaybta hoose.